السلام عليكم صباح كلو قروح بدن ساكن waxaan joognaa Cabdicasiis Shibane oo aan waxa weeye safar ka nahay waxaan u soconaa xarfo Puntland ka baxaynaa halkan waa maqaaxida ama meerada ugu caansan magaalada Puntland oo qof walba oo reer Puntland oo wadadan soo maray uu garanayo insha Allah xagaan aanu ka quraacan doonaa kadibna safarkaanu gali doonaa aad baan idin salaamana waxaanu hadda maraynaa deegaanka Fortuno meel aad u qurux badan oo Puntland u jeedaado ku dhawaad 15 ilaa 17 kilomitir xarfaan ku sii soconaa meel walba waan istaaganayo waxaan jeclaysanay inaanu muuqaalo qurux badan ila wadaagno dhulku aad u qurux badan yahay oo cagaaran yahay sidoo kale barwaaqana waa lagu jiraa sidoo kale waxa jira wadooyinka aad wax badan ba iska bedelay khaasatan marka wadada u dhaxaysa Puntland إلى جروي سيدو كلا برتلي قال كعيو أدى لوجا شقي دولتنا هذه شرطة بنتلن مركا الصعود كأدو في عيني هل كأول حرف اللو كلا سعون شري هل ساعة برا ما الله بس ساعة ضي برتلي هذا وح الله كلا سعود وحن جارين 20 minutes باورت دايرية لكن وحوي وضع لام يعادو قرح بدن سيدو كلا فرشنو بنهد شغنا حرفان قوة جهن هاي وكان إنك حرف لها حيسو قرتان كلي ويلك راح حرفه سفر كأني ما نسيب وضعنا وحنوسع عنا حرفه مقالدي وحواي يشك تشب يلام يا كور تشب يلام ومحاك هذا صارني تشب يلام يا سمي دارت ده تشبنا وتشب وحواي رفاد يبور يسلعوي هذا نواتن حتى شهبة ساوقات قادتي قعدت وقبست باكو قال لي كذا حرفه سو كلول أو عن دادن ده مركا وحواي وحلاها لو ما هذي ويا horumarka wadanka socda oo ay ugu horeeyaan ismaha wadooyinku marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxa weeye muuqaal fiican oo ku sameyn doona insha Allah sida waan ku loo dhisay haddana waa xilliga ugu fiicnaaba oo roob iyo maartay dhulku naqleeyahay aad iyo aad baa jawi u fiican yahay dalxiiska ugu macaan yahay marka halkan kaliya xanuun bay ahayd runtii oo marka dadku ay marayaan ku rafaadi jireen waa ogeed 3 saac baa lagu jiray maantana hadda xarfa shaha iga dalban yahay saa sheegtay مقاحدة صفر صار لها واحد الشهر نوصل دلبدت حاجة نوسوي. دت كان يميق أن المقالة دي وصعدا معنا وصاع عن يسارنا سكلا عدها جاي دور صدي. يا سياسة قلين مركا صاحبي لو وجد أنا حتى أو جارو سبيد في عنكو صعدا وأد معركة أسر ريا واحد مدابد إن الملف إسكفر النبأ كلية صعد كوا حق دري مثلا تعقد في الأيام كلام ما كان سكولون نرمدو قاهيو قال كعيوضة مركز لو مركز قال كعية آد درفاد ومركز كوكب تشري مركز لو آد بمسكح لي حق صور الرفاد كي جد كي يدبكي لكن هذا دي ما أنت حق فرصة يا ران لنا هنا وضنا وده دغدة تاخد تقنو قال كعية كسر لعوان إنه لاندير ما فهمت
waxaan nahay dhowr dhalinyaro ah oo wariyaala muuqaal duubayaala marka muuqaalo fiican oo ka duubi doona insha Allah deegaanka waa deegaan qurux badan buura ay dhinacyada ka yihiin xaggana baliye iyo cagaar uu dhinaca ka yahay marka soo dhawaada shacab badan way cabna maanta wax dhidin naga socdo u jeedaan marka kilo wada maraya xarfa ka war xarfa wallahi waa soo macay cuntada maxamuda jiifkeeda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un laga sheekay karo marka waxa way gabarna ku siinay maxaa umar maqraadi hada waduubanta arinta waduubanta Allahu akbar ku siinayna soo diyaar magaalo qurux badan oo barwaaqo hadda xarfo waxay caan ku tahay xoolaha sida ka muuqata deegaankana waxay deegaan aad u daaqsimeed u ah marka farxadeena tahay inaan soo gaarno soo dhawaada nabad degmada maxay caan ku tahay sax degmada waxyaalo badan bay caan ku tahay dhinac walba horumarna waa ka dhisan tahay degmadana laba soo koobi kara saaxiib macaan degmadana degmo horumarsan oo ballaaran meel walba laga yaqaan labadaba waa la garanayaa baa maleynaya degmadan qof walbana waa garanayaa baa maleynaya sax degmada ku soo dhawaadaan leeyahay degmadii nii weeyaan leeyahay welcome waan leeyahay sax soo dhawaadaan maxaa leedahay dadkan wali xarfa arkin maxaa leedahay waxaa leeyahay xarfo waa magaalo fiican oo tarxiis ku fiican marka lagu soo yaacaan leeyahay maqashada lagu soo yaac xarfo magaalada xarfo waa goob taariikhiya iyo aasaaskii magaalada xarfo waxaa nooga warbixinaya Hargeysa magacaaga iyo Hargeysa horta marka koowaad muxuu ku baxay magacayga iyo Hargeysa magacaygu wuxuu igu baxay marka hore Hargeysa ku dhashay xarfo igu baxay si yar oo sahlan ba igu baxay wuu iskala kay duula aad iyo aad halkaan joogno iyo ka war halkaan joogno saan taariikhda ku maqlay waxa weeye aasaaskii xarfo maqaayadan wax la oran jiray maqaayad caan ah oo diyaacad la oran jiray baabuurta Muqdisho ka timaada Berbero Hargeysa ba ku xisaabtami jirtay adigu ninkan wax la yaa cadde aad iyo aad cigaal cigaal khaliif bariya ama maxamed aad iyo aad waxa weeye waa awowgiis baa meeshan asaasay iska lahaa magaalada baa iyaga asaasay magaalada waxa asaasay saddex oday oo taariikhda asada waan loo aniga kulli waa laga sii dheeriyay hadeen laba galba u baahan aad iyo aad laakiin waa un caankii magaalada si fiican hore oo lagu xisaabtami jiray saan maqlay Muqdisho ilaa baabuurta transitka ah baa muhiimadda number 2 meheradaha caanka ah wax laga cuno yahay haddana waad u jeedaa marka qadiimi weeye aad iyo aad inay seedii oo kale Chinese marda wax ku soo noqoto dib loo furo magayn loo bedelo aad iyo aad hay cadda hay aad iyo aad korri ma sha Allah walaal ku soo dhawaada degmada xarfo meeshaan hadda taaganaana waxay ka mid tahay meerada ugu horeeyo degmada xarfo laga furo waana meel baabuurta ka soo baxda waqooyi Hargeyso iyo baabuurta ka soo baxda xamar ay ugu soo tushan jiray cashada iyo waxyaalaha laga cuno habeenkii soo jeedka kala oo baabuurta traaga marka meesha waxay ka mid tahay waa meesha markii laga soo tago gobolka Mudug xarfo waa meesha looga soo xisaabtami jiray oo buuraha iyo dalxiiska iyo meeshana waa meel casri oo degmada markii ugu horeysay meheradi ugu horeysay laga furaynayd waxaana aasaasay Diriic Ismaan oday la oran jiray Allah u naxariisteeyo Saciid Xarf saddexdaan baa markii degmada aasaasay iyo Cabdullaah Yaasiin oo kamid ah dadkii hore degmada xarfo marka ku soo dhawaada degmada xarfo aad iyo aad sidoo kale waxa cajiiba ku dhawaad 15 sano 17 sano iyo 12 sano ka hor baan markaan safarka ka nimaano Gaalkacyo soo mari jirnay mawlacan iyo meeradan markaan wax ka cunno ku tukan jirnay halkan aad baan u xasuustaa soo dhawaada mar kale farxadda ii tahay inaan mar kale soo booqdo goobtan taariikhiga soo dhawaada